dowlad Somaliland la yiraahdaa way baabaday awdal maanta haddii ay hesho maamulkeega madax bannaan maxaa soo haraya arrinta uu ka hadlayo muuqaalkii ka horeeyay ayaan kaga hadlay Soomaalidu waxay yiraahdaan ninkii noolow maxaa aragti ku laaban waxa weey taa macnaheedu waxa weey haddaad in badan noolaatid waxa weey yaabab fara badan nibanku ka cimri badan yahay waa arkaa waxa weey nimankii Samaroon ama nimankii Awdal war waxaan ku warnimadiina yaa la idinka ciyaarin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برتنا دقيقة داونسي وبرتني أنا فيسبوك بيج كل هاي ميديا فضلا هذا نقول صبت هاي بيج كنوفل وجريس دوكله موقع كهدات كده ونسي يوتيوب لايك صار سبسكرايب من النص صار أدي أدبض ما تصنتهاي واحد نكهل الدونا لبقى ضب أي نكهل الدونا سلطان حسن حلوان كهل أنتي دعوته ودعوته سلطان حسن وحوي كلمة بان كأرن دونا وحوي سلطان حسن ومضى وسلطان كجودة هرت ومضى سبيرة والله يلاحظه بيش السبيرة والله يلاحظه سلطان كوديوي سلطان حسن وحوي يعني جوا سلطان حسن وحوي ورندونا وحيان كأرنا يعاوه دي الله كده سلطان حسن ومضى السبيرة وال ماشي مجرس بنته كتيرته أيوم مجرس ينوضح وحوي نسياسية إنه سلطان كيجو عرقنا ذيو أما إنه السلطان كيجا تشوش كفره مرنا بكيل منه قلب كاسرت وانا رندونا يو قلب كوان دريس تاجي دونا وحن كأرنا يوان دريس تاجي دونا دي هيدا قلب كلا بعض إن كهلا وحوي وانا مكي سمرهون نمدو دي قبل كي أول نمدي سي وحوي ومطبع الله صادر والله قفن قرينا يا حسن شيخ يددك إن السوماليلاند من نقطه Somaliland inay mid noqoto dadka diidan ayaa ma garanaysa lacag fara badan ku bixinaya golaha baarlamaanka ama golaha shacabka ee ummadda Soomaaliyeed waxay ku magacaabaan nimanka isaaqay halkan ka tagay iyo nimanka ma garanaysa awdal jooga waxa ay yiraahdaan gobolada waqooyi lama kala furfuri karo iyaga oo ma garanaysa mida ayaynu aragtideena ku keenana Soomaali weyn baynu ka dhiganaa haddaba taamaanta waa la iskala tagay Somaliland markii si kale lagaga adkaan waayay ayaa waxa loo soo adeegsanayaa caada qaatayaal dad aan iibaan haysan dad aan ma garanaysaa shacabka danyarta iyo dadka maxasta aan u turayn baa loo soo dhexmaraya waxaan idin tusayaa amiirkii ugu weynaa ee loo soo wakiishay ama loo igmaday in lagu furfuro nabadda gobolka Awdal laguna kiciyo shacabka reer Somaliland ee degan Awdal waxa weey waa dhagartii ugu weynayd waa dhagartii ugu khatarsanayd waa dhagartii ugu halis badnayd maanta ninka ka degay Muqdisho ee lagu yiri madaxweynaha waxa tahay Awdal baa tahay waxa weey dadkaaga sidii aad u kala furfuranaysid ee halkaan nabad daro aad uga ridi lahayd u diyaar garooba lagu ninka maanta Muqdisho ka degay ee Xasan Sheekh uu la baxay madaxweynaha Awdal State waxa weey wuxuu ku bixinayaa malaayiin dollar buu ku bixinayaa sidii uu u kala furfuri lahaa shacabka Awdal waxa weey hadaba shacabka Awdal iyo shacabka reer Somaliland maxaa la gudboon waxa la gudboon laba mid ayaa la gudboon shacabka reer Somaliland laba mid ayaa la gudboon halisaha loo soo mareegayo iyo dhagaraha loo soo mareegayo inay dhexdooda mid ka ahaadaan waliba waxa loo baahan yahay dadka shacabka ee maxasta degan magaalada Boorama ama dhammaan gobolka Awdal waxa loo baahan yahay inay feejignaadaan waxa weey nimanka waxa loo soo wakiishay ninka Muqdisho ka degay waxa loo soo wakiishay waxana loo ballan qaaday in laga dhigi doono madaxweynaha Awdal haddii ay guuleysato waxay raadinayaan ee ah in Awdal laga dhigo Soomaaliya ama Awdal State waxa la yiraahdo Somaliland ka madax banaan haddii ay suurto gasho waxaan ka dhiganaa madaxweyne ninka barta ka degayna waxa uu soo wakiilan doonaa niman dadka shacabka ama dadka ma garanaysaa aqooyahanka dhalinyarta dad madaxa jabin doona ayuu ma garanaysaa isaguna soo wakiilan doonaa waxa weey shacabka reer Boorama marka maxaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay inay nabadooda
iyo qofkii wax carqaladaynaya iyo qofkii nabadda ka hor imanaya inay mid ka ahaadaan baa loo baahan yahay looma baahna waxa weeye dhagarahan maanta loo maleegayo ummadda reer Boorama ummadda Samaroon waxa weeye waa dhagarihii ka kaxayn lahaa nabadda ay maanta ku noolaanayaan 32 sano ayay cashuurtooda loogu shaqeynayay 32 sano ayaa nidaam saxi barta ka jiray 32 sano ayay dawladaha caalamka iyadoo la aqoonsanayn Boorama la tartamayay maanta haddii ay Boorama ka tirsan tahay Soomaaliya maanta horumarkii gaadhay marka shacabka reer Boorama waxa looga baahan yahay inay nabadooda ilaashadaan waxa looga baahan yahay qof kasto nabadda ka hor imanaya ama qof kasto ummad Soomaaliyeed ama Soomaaliya ka sheekeeya inay aayar qabtaan oo iska xidhaan maamulkana la socodsiiyaan taas ayaa looga baahan yahay haddaba waxaan tusayaa muuqaalka ninka Xasan Sheekh awdal baan madaxweyne kaaga dhigaya uu yiri war wuxuu ka sheekeynay Ilaahay baa idinku dhaariyay eega ninkaasi haddii uu wax sax la rabo waxa weeye ummadda maxasta ee taagta daran ee dadka xanuunsanaya haysta marnaba nabadooda kaga ciyaareen haddii uu ummad Soomaaliyeed ama dawlad Soomaaliyeed la doonayna waxa uu oran lahaa war ummadda Soomaaliland iyadoo mid ah ayaynu raadinaynaa ee ma garanaysaa marna awdal aynu soo furno marna aynu sool furno marna aynu burco furno Soomaaliland oo dhameystiran sida lagu heli maayo bal muuqaalkan cajiibka ee halista badan leh waxyaabaha uu ka sheekeynay waa yaabo bariir leega Somaliland definition kale leeda khaatumo way baxday dacwadaasi way baabaaday dacwo Somaliland la yiraahdaa way baabaaday waayahay ninka aad arkaysiin waxa lagu yiri madaxweynaha awdal state baa tahay waa inaad samaysataa 20 nin oo magaalada Boorama ama gobolka awdal ka hawlgala dadka madaxa jabiya sidii laascaanood waxa weeye saasa lagu yiri ka bacdi intaas haddii ay ku hirgasho oo shacabka ay kacaan awdal ama Samaroon waxa weeye waxa noqon doonta madaxweynaha barta ka arrimiya waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya ayaa laga dhigi doonaa awdal waxa weeye waxa soo dhan waxa loo maraya si Soomaaliland loo kala furfuri lahaa kulka waxa loo baahan yahay shacabka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan inay istaagaan oo maamulkooda iyo dalkooda iyo magaranaysa madaxdooda intaba ay la shaqeeyaan baa loo baahan yahay qodobkaasi waa isaga ah wuxuuna iga ahaa inaan shacabkayga reer Soomaaliland ku baraarujiyo waxyeelada iyo dhagaraha loo soo mareegayo waayahay qodobka labaad ee ka hadlaya waa Suldaan Xasan suldaanka guud ee Subarawal shalay waxa lagu yiri salaadiin inta meel la isku geeyaa lagu yiri waxa tidhaahdaan baa lagu yiri sandalad wadani baad la safatay haddii aad wadani la safatayna sandaladii guud waa laga qaaday ummadda Subarawal war horta sidii uu isagu sheegay Suldaan Xasan Maayir umaynaan dooran madaxweyne umaynaan dooran ee laakiin Suldaan Xasan isagiyo awooyaashii iyo magaranaysa dadkii ka horeeyay waxa weeye 350 sano ayay soo talinayeen sidoo sheegay waxay la soo shireen Turkiga bay la soo shireen Ingiriis bay la soo shireen dawladaha caalamka ugu awood badan leh ayay la soo shireen kolka maanta maaha suldaanka guud ee Subarawal ummadda Subarawal waxa uu wadaa annaga waxa weeye waa dhaqankaygii annaga waxa weeye waa magaranaysa umaamadayadii suldaanka guud ee Subarawal ummadda Subarawal waxa uu wadaa halkii ay dan ugu jirto labada waxa ka fudud ninka danaystaha ah ee magaranaysa siyaasiga ah ayaa labada suldaankayga ka fudud waxa weeye ninka siyaasiga ah ee maanta ummadda kala dilaya Xasan waxa weeye mar walba waxa uu ka shaqeynaya ummad buu ka shaqeynaya waxa uu ka shaqeynaya ummad nabadeed buu ka shaqeynaya ummad midnimadeedu ka shaqeynaya ummad waxa uu wada jirkeedu ka shaqeynaya maanta Subarawal oo dhan waxa weeye shacabkeeda haddii uu codeeyo wadani nagu yiraahdo uu danteeda ka dhaxarko waxa weeye anagu waxaan la dareenahay waxaanu la aragtinahay waxaanu garab istaagana suldaanka guud ee Subarawal Suldaan Xasan ayaanu garab istaagana laakiin haddii uu maanta nin magaranaysa nin siyaasi intuu shacabka uu kala dilo oo kolba salaadiintii intuu kala furfuro oo magaranaysa qaar intuu hotel gooyo uu ku yiraahdo ka qaada sandalada guud annaga taasi nama qabato sandaladuna meel la iska mara maaha sandaladuna waxa ayar la iska sheegta maaha sandaladuna maaha madaxweyne 5 sano la dooranayo ee waa ummad soo jireena Suldaan Xasanna haddii uu wadani
iyo dadka wadani taageersan uu ka dhex arkay ummadda Subeer Awal uu ka dhex arkay mustaqbalkooda annagu isaga la dareenahay suldaankayaga cidda taabatay waa cid horumarkayaga iyo nolosheeda taabatay qodobka isagaana waxa leeyahay salaadiintii kale iyagana salaadiintayda ahayd waxa leeyahay waar ka noqda siyaasiyuuna isu kiindirin baan leeyahay shacabka reer Somaliland waxa leeyahay waliba gaar ahaan beesha Subeer Awal waxa weeye inagu suldaan xasan aynu la dareenahay suldaankaasi lama aban ee waxa uu arkayaa mustaqbalka ummadda siyaasiga qalowca uu ku wado kolka waxaan leenahay ha guuleysto xaqu suldaankeenu ha guuleysto suldaankeenu bartu inoo raro ayaynu tagaynaa intaynu muuqaal ka saaxiibeen muuqaal lamida ku kulmi doono sida waxay kaga tagay ciao ciao